والله قال لي ما يهدى الصلاة دي لقبح ولا قال لي والله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وايا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايف نوجد جرا خيارتها شرفت الله مركز صدى عالم كشوتان أدرتان ساعدة قبل كاس إلينوي عرق أمريكان كا waxay ka tahay 4 daqiiqo sida aad u jeedaan dadka muslimiinta ah hadda salaadii ay halkaan ku tukadeen barakallahu fiikum walaalahay qiimaha iyo qaayaha lahow aad ayaan idin jeclahay barakallahu fiikum ha walaal وانا الدنيا اقرب الله كعزي والله ما قرأت تكس مسج اوكي إلهو الدنيا اقرب الله كعزي ان شاء الله ولالكي قالي حقيقة سغنت هذه الدنيا اقرب الله كافحي وصوعي الله يبان هذا كتيرا ضد يعني كتيرا يعني ولالكن عضوم ما ندرى وين ورئيسي ان شاء الله تعالى يعني ان شاء الله تعالى تلبحني اضينمو وكقلو الصومالي وجدي ان شاء الله تعالى مركا خير ما نكون رجينا ولالكن ان شاء الله تعالى مرحب aad badu ma santahay ilaahay adduunyo aakhiraba allah ka farxi magacaaga maxaa walaal maxay الدنيا آخر والله زي ولال قاليه إن شاء الله هذا اللايف كان كتير وداوان كرتها إن شاء الله تعالى أنا صلح حريرنا ولكن عرضون بان إن شاء الله يعني رجينا إنه أرنتان كهل مركا أضيف صوماليات أبوان صوماليات وجيش صوماليات هليري صوماليات قرقارة صوماليات إن شاء الله تعالى مركا أصلا خد كرجينا إنه صاقل إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة walaalahii qiimaha iyo qaayaha lahu saad u jeedaanba salaadii ayaa halkaa laga baxay masjidkan aadka u weyn insha Allah ta'ala waa dad muslimiin oo isku xiran saad u jeedaan masaajid u weyn oo masaajidada halkaan dhinacaana waa iskuulkaas u jeedaan waa high school ila dugsi hoose dhexe waa dugsi sare halkaan ayaduna hadii ay kudmahayo waa iskuul kale يعني ما شاء الله حافظنا ودن بعض المسلمين هذي لا يكونوا مركز إسلام حب بكل هاي ذلك أمريكان هذي لا يكون معيو بارك الله فيكم مركز علدان فضلا هذي مغلي علدان ولكن علدان إن شاء الله تعالى وريا الصوماليات الرجين إنه يعني أن بلسطين حواكور إنه يعني الصوع إن شاء الله تعالى سي هذي لا يكون معيو وسي يعني الصومالي سجود ملك استأجرته مركا إن شاء الله تعالى ورالك علدون ما مغليسا فضلا عند كستو كأو علدون خدكوا وكوفرين هاي وعنا جينا أنا يسوي عيس علدون ورالك خير الله كسيه بارك الله فيك وما كان دي وحكوا دعي هدي لا يكون ما ملا هدي هلو والله هلا والله سدو هلا طلع عصر صباحا والله علدون ميا مباني كلا كسور يا علدوري ما اقولي هادر هلا علدون ميا السلام عليكم توحيدكم دب عصر وي دب عصر هادر علدون ميا مع جلدي هراء ولها دقبرو
duqburow walaalkeen weeye allah hanuuniyo laakiin hadda xoogagii shayaadiinta hadduu ku biiray waa baab kale ma waxaa sheegaysaa cajaladii uu ku lahaa nin isaaqa la xiray miyaa 6 milyan baa qaadatay adiga ayaa masaajidka ka aruurisay ayuu leeyahay walaalow caawa $1 walaana haysan caawa 500 walaana haysan xagee ka keena 60 milyan walaal la gacaliye qof kastoo Soomaaliyeed baa og in isbaara la ii dhigtay gaal iyo muslim baa la igu diray Soomaali la igu diray Carabi cajab baa la igu diray marka hadda waa la yaqaanaa dadka lacagta la aruuriyo 60 milyan iyo 10 milyan iyo 30 milyan aruuriyo ma laga hadlo miskiinka Allah la cuno qabateeyay maxaa loo ceyrsanaya haddana bastoorad iyo dil iyo lagu wado iyo dhagax tuur marka niyo waxaan Soomaali iyo muslim gaaladii caalamkii baa fahmay hadda waxa kan beenbeenta iyo qurunka iyo beenti iyo mooryaanti iyo dilka iyo dhaca iyo boobka iyo xaraan ku naaxnimada waa loo jeedaa caalamkii waa toosay Soomaali waa loo jeedaa cidda runta sheegaysa cidda beenta sheegaysa cidda wax dilaysa cidda wax dhacaysa cidda gardaran mujrimiinta criminalska daahir cali saw iyo xirtiisa waa loo jeedaa adduunkii oo dhan baa u jeeda marka walaal la gacaliye dadka Allah hanuuniyo xaqana Allah nabso Soomaalinimada isjacaylkii iyo walaalnimadiina Allah noo soo celiyo dugaagnimada iyo bahalnimada iyo dilka iyo dhaca iyo bilalaqada iyo abaarta iyo colaada iyo silca kuwa ka baxan Allah naga dhiga magrad amiin waaya walaal la gacaliye waa ma santahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Coldoon fadlan hadduu maqlayo khadka soo galo walaalkii Coldoon meeshaan waa la isxirayaa meeshaan waa la isxirayaa oo ma jirto haddii Ilaahay ku idmaayo xorriyatul qawl ma jirto marka haddii ay ku fududahay walaalkii Coldoon oo wax dhibaato aysan jirin aad xor u tahay inaad wax khayr la ka hadashid oo wax kale aad siyaasad gelin kaliya yani si warniyeynimo ay wiilasha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed aad tala siinaysid fadlan soo wac walaalkay haddii Ilaahay ku idmaayo barakallahu fiik adigoo mahadsan haddii Ilaahay ku idmaayo akhyaar sharafta lahay waa afartii iyo xoogaa dadka muslimiinta hadda ka baxeen masaajidka tahajjudkii salaadii subxiga ama baa la sugaya haddii Ilaahay ku idmaayo waa beriga ama subxigii baa fajarkii baa la sugaya haddii Ilaahay ku idmaayo marka salaatul fajr baa la sugaya haddii Ilaahay ku idmaayo بالسكون يعني هدي لها يكون معي بس بالفتح هدي لها يكون معي تايبة صلاة الفجر هدي لها يكون معي مركا ولالك Coldoon ما واحد كل هدي لها يكون معي هذا هلا ولالك سودا وو Coldoon مياه يا ولال يا ولال والله كما مغلي والله واكو سلامي مركو واكو سلامي السلام سر ولا لا قالي ولا قالي horta بعد السلام aad horta uga xubnahay wixii ku dhacay iyo dadkii khaladka weyn ka galay dhalinyarada Soomaaliyeed ma garatay si fiican walaal ilaahay xaqahana iskuulay halo Coldoon miyaa وعليكم السلام Coldoon مياه Coldoon ما شيخو سلام والله السلام الله عليك شيخو حالنا وداد وكواننا هيك ومدى الصوماليين ويكوانسي معناها ماركتي تسكن قبيلك او اري امين ماركتي صومالي ويسميسي لا سغاشي كودي اسميسي هيا هلو 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 والله هلو 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 سيف على الحكومة هيا والله والله مركب مدة إلهي Soomaalida way isbaabtiisay haddii horumar wax gaarayso macnaha maaragtay dadkan u nasteexay oo macnaha mataqan adigana ka soo laab oo qabiilkan har iyo habeen afka ku haysid iska dhaaf walaalkay qabyaaladda xun qabiilka munkarka iyo dulmiga iyo nabadiidka waa la sheegi karaa oo odayaasha inta bannaanka soo istaagadha annagoo ree hebela dirya daarood iyo hawiye iyo mareexaan waxay doonaan yeerxaweynba daalimka waa la dhihi karaa daalimow dulmiga jooji ceeb maaha waa inaan hadalnaa dhalinyarada Soomaaliyeed qabiilkii dhib wada waa inaan dhahna ree hebelow joog nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam unsur akhaaka daaliman aw madluuman
walaalka u gargaar garya gardarraba rasuulka allah sallallahu alayhi wasallam hadduu gardaran yahay laga gardaran yahay garanay inaan u helino hadduu gardaran yahay ka waran wuxuu rasuulka alayhi salaatu wasalaam dulmiga ka qabo war nin walowba ninka mujrimka oo criminalka oo qabiilkaaga qabo diintu saasay qabtaa maceeba marka in la dhoreeyo hebel dulmiga joojiya okay waxaan ku weydiinaya shalay markii wiilashay bistoolada ay kugu qabteen waxaad dhahday adiga hawiyaa tahay adiga hebelaa tahay adiga saanaa tahay sheekh macnaha nin maaragtay oo ummadda inuu dhibaateeyo usoo kacay macnaha maaragtay qabiil ha ku tilmaamin ولا لا قعلي بارك الله فيك أنيقا وحيالا بدن أن أجهي وعلى يري أمولي وحاس بس يسوي حوجين ومش شجان أنيقا صومالي بأنا هاي وحبذن واقرين إياه ما مغليسا وحبذن أو بدن 99% information كأي نيوز كأنا يا كويت وأم أفكار واحد لما يو هاي قد قدرين الصوماليين ما مغليسان nin Soomaaliyeed oo wadaniya oo xalaala oo hawiye jecel oo daarood jecel oo isaaq jecel oo racweyn jecel oo ciise iyo anfar jecel ayaan ahay oo Soomaali dhaba wax badan oo aan ogaayna ma sheegin gaalna uma sheegin muslimna uma sheegin ilaahay baan ugu dhawaanaya taas janno uga rabaa ma maqlaysaa marka yaani fadlan qofka damiir kale oo dadnimada leh oo Soomaalinimadii iyo islaamnimadii xiriirnaya aan dhowrno anne aniguna walaa la gacaliye qof kuma qaban war hawiye u jooji dhibka war daaroodo xabadda jooji war isaaqow jooji war digaliya mirifla u jooji war Soomaaliya peace for all of us peace for Somalia peace for Somalia peace for Somalia Emma we need peace no violence no killing no terrorism nothing dil maya qax maya xootinimo maya Soomaali nabad walaalnimo islaamnimo heshiis kulli mashiqo waana ma kugu yara waraqlo hadda xalaw kuwa marka maqlay way kula hadleen macnaha maaragtay nin wadaad tahay inta badan wadaadka xalay kula hadlayeen oo wuxuu ku yiri dadka ummadda qabiilka afka ku haysid dadka dhaaf هذا كوان يا ديوانو أدوانو كعبة قادم. دولا لقعلي موحد لهاي في موحد لهاي ويا دمستو. أيه. وكل يا دمستو. حتى على السواس كإلا إذا اللايف كان يسكري ترى تنو ولا كواركنا. والله وما سنتاي داير على السو وموريان ومجرم وكريمنال وقاتل ودلاء صحفي معها فيستيجيتر معها Soomaaliya crimes buu ka galay caalamka crimes buu ka galay khatar buu ku yahay nabadda caalamka khatar buu ku yahay nabadda yaani Yurub khatar buu ku yahay khatarta Holland iyo Netherland khatar buu ku yahay asaga ciyaalkiisa iyo xirtiisa iyo maafiyada la shaqeysta Belgium Yurub meel kasta hadii ay kudmaayo balaayo iyo baas iyo yaani gaal iyo muslim khatar buu ku yahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed ha ka digtoonaadeen argagixiso iyo criminals iyo gangs ha ka digtoonaadeen ma maqlaysaa يا وده نمدو محيطة ما الظلم أكا اللي ما ليه حتى ما هو حال ليه إن اللي هوية وكعة هراء أخيارته شرفت لهي هو هذه وصودا ماتي بنتي وصودا ماتي هلا والله اللي صودا وو السلام عليكم شيخ عبد الرحمن وعليكم السلام ولالك صودا وو خير الله كسيو وكفريا اخيارك الصوماليين ومغعاغي ميشا جوجت وكفان صوماليين oo jooga Germany Bremen Ahmed صودا وو codkaaga Soomaali baa tahay hadal horta aad oo mahadsan tahay waxaan salaamayaa ciwaanka waxaa ku qoran xoldoon wadaniga Soomaaliyeed alheyga aad baan u salaamayaa adiguna sheekh waan ku salaamayaa haddii aan guda galo barnaamijkeena horta waxaa weeyaan mid waa mid qof culimo ah tahay qof weyn baa tahay mar walba adiga lagu ixtiraamo oo kuwaanina haddaan nahay dhalinyarta Soomaaliyeed haddaan nahay
dhalinyarta Soomaaliyada iyo samada jecel mar walba anagu weeran ma ku leenahay ayay aflagaado kuma lihi hal mid baan ka codsanaynaa in aad yacni qof weyn baa tahay in aan ugu dareemo in aad wadada saxda ah tusto in aan dadkan qaa'imiinta ah yacni khamriyacabka ah beenaalayaasha ah yacni waa bil Ramadaan tobankii dambe lagu jiraa warabu kacba waad maqashaa Soomaaliya shaad si fiican waa lagu maqlayaa saaka layfa nin ku jiray Arabiga waxaa dhaama ayaa ka aad u aytama warabu kacba waan dhageysan kari waa ninka nacalad ka dhacaysay jirka jiran Tennessee واقف ما ولا لا واقف ما walaalkay nin kale ku jira ma igu soo celin kartaa waayo walaalkeen baa ku jira igu soo celi sheekh ku jira halow sheekh marka jirkii baa waa jirricootay waa jirricootay يعني waxa uu ku hadlayay wareehbaro kaca wareehbaro sida sameeyo war qabiil waa gartay marka fiiri sheekh Cabdiraxmaan marka waa gartay waxaa jira ay weyn marka xaafadda lagu xidho ay yar oo yacni gaar ah oo soo taago istaafa oo markuu qof meesha maraya qaybiya waa gartay kan hadda qaa'imiinta ee hilib jooga meesh nin carab la yiraahdo waa ninka u qaybiya u hor orba ee qaa'imnimada u isticmaala ee yacni waa gartay walaal dumarka aaya heer hadda waxay gaadhay dadkii waaweynaa baskoor oo lagu qabto horta fadlan hala cafiyo wiilasha oo waan codsanaynaa in la cafiyo laakiin waxa iyaga ku kallifay cidda dabada ka waday ayaa rabnaa waa gartay walaalle dabada ka waday ee baskoorada u soo dhiibtay ee macnihii baskoorada ku ilaahay yaa yaqaan war suwa ninku ha hadlee hayo walaal marka Cabdiraxmaan oo waxaan halow islaam aan nahay qofna markii ilaahay abuurayay lagu geli ilaahay muu la geli shuraako uma dhin qabiilada diga abuur ilaahay qofka isaga abuuray qabiilkiisa in aan qabiila iska dhaafto qof culmo ah tahay dadka kula xisaabtamay iyo waxa inaad iska dhaafto inaad wanaagaaga iyo masteexada iyo wadaynimo jacaylka aad inaad loo horseedo wixii aad bariishana shakhsiyan inaad u bariisho laakiin qabiil aad u bariisho shakhsiga maanta laakiin nimanka Yurubta jooga ee maanta wadiyaa leeyahay war qabiil maanta idin maqlan ma jiro qabiil uu dhamaaday qabiil in dhimatay iyo in dhaawacantay iyo in rafaatana wana aaminsan karin oo hadduu xaaqul afkooda aan kala qaadi karin weeyaan been bay aaminsan yihiin الناسيجكن حن أي أقدريان باليركا ويتلسوا بيشوان adiga hal mid baan kaa codsanaynaa hadda haddii qof kasta oo mas-uul ah ama qof kasta oo marka haddii aad dhahdo dhalinyartan maana laga qabto waxaana lagu jawaabayaa maad dabcasar qabataan maad kansaa u samaysaan hal mid samee adiga waxaan kaa codsanaynaa wiilasha inaad iska cafido annagu dhalinyarta Soomaaliyeed haddaan nahay waxaan ku cafin karnaa in ay runta sheegaan wixii ka dambeeyey filinka isku xidhan ma argagixisa iyagu yaa ku xidhnay oo yacni dad si kala argagixisii ashaab la shaqeeya ahayn shakhsi adig kula xisaabtamaya soo dhiibay yacni amar ku siiyey in lagu cabsin keliyo inay ku dilaan meeli keliyo runtaan sheeg laakiin in adiga lagu cabsiiyo oo adiga lagu argagax geliyo basay ahay laakiin meeshii ahayd inay yacni waxay uusan wadeen maxaa ku noqon wayna ku adkaatay arrinta muhiimaddu marka waxaa weeyaan in
iyagu ay sheegaan waxa meesha message-ka uu ka yimaaday ee laga soo amray inay sheegaan adiguna intaa markay sheegaan aad cafido wiilasha dar ilaahay iskaga cafido inaguna aan faataxaan u marro hadda arrintu meel xun bay maraysaa haddii ay adig kaa badbaadaan dowladdii kama badbaadayaan mid ay kale ku darsanayana waxaa weeyaan qofka maanta daahir cali suuqi maxamed carab qabiil ku taageeraya ee maanta inay qaldan yihiin ay jid qaldan marayaan shaksi walba oo soomaalinimo ku jirta wuu arkaa shaksi walba wuxuu ka sheekeynayaa marxuum iyo ku dhintay iyo ku aajooginba maanta saas u sheekay saas u hadalhayaan jirka duub ka galdaxiri caafimaadka waaya qaraxdii ku dhac ma nimankii maalinkii dhowey soo dhigayay bartooda facebooka farmaajihii fataqlaa ee faanoolaha ahaa biise hotel muxuu yidhahdin waayey war biise hotel ka qarxiyina waa walaalka kala qarxiyina waa walaalka runta aan isu sheego muhiimadda shacabka ayaa nabadgelyada suga ciidan waxaa masuul midda keliya u sheegaya waxaa weeyaan shacabka soomaaliyeed aan leeyahay qofka aan maanta wanaag aan rabin ee maanta qabiil iyo qabyaalad ku jirto gacan biraa la iskaga kaa qaban meel xun baana ku dambay shaksiga yacni kelinimada ka muuqata raggan hadda yurub jooga markuu leelka soo dhirgelgelinka labadii saxdaad mar wuxuu dhihi wareeheerow hidaaya wareeheerow faraha iga qaada wareeheerow haddana wuxuu qofkii bartay haddii qofka iimaan la-aan ku dhacdo ma aamusi karo haddii iimaan la-aan ku dhacdo wixii inuu ku xaraara bixuu doonaya uu dhiigku ka soo baxo uu qabiil iyo yacni shaksiyaad iyo dad u caayo adiga hal mid ma noo samayn kartaa qabiil halkaa ma iska dhigi layfkaaga iska wado dowladdaada iska dhigi qabiil afkaaga ma ka dayn sheekh cabdiraxmaanow haa iyo maya walaal la gacaliye qabyaaladdu waa wax xun qabiil ilaahay baa abuuray qabiil kuwaygana hadduu yahay hadday dulmi ku socdaan waa sheegaynaa may maqlaysaa waxaan kuu sheegayaa hadda saacaddan minidkan mooryaantii haddii ilaahay ku idmahayo waxa ay riboorgaraynahayaan haddii ilaahay ku idmahayo facebooka beijkayga ayay riboorgaraynayaan saacadda tan ilaahay idankiisna sawirraan qaadahaya dacwaddii kalea ku biirinaya yacni meediyaha argagixisnimada ay ka wadaan naftaydii oo ay weerarhayaan yacni shacabkii oo yacni ay amrayaan in lay toogto in la idilo waan u sheegahaya codka afkayga iyo codkayga in la xiro laysku dayhayo ummadda soomaaliyeedna waa u sheegahaya marka idinkuna saa la socda xaq iyo baadil baad dirirhaya mareexaan hadduu yahay ogaadeen hadduu yahay dhulbaante hadduu yahay majarteen hadduu yahay hawiye hadduu yahay isaaq nin kastoo daalima qabiilkiisa waa la sheegaya mooryaanka qabiil walooba qabo soomaaliyay qabta ilaahay baa idin faray rasuulkiisa calayhi salaam baa idin faray jannaad ku gelaysaan naar baad uga badbaadaysaan xaqa u hilaya baadilka la dagaalama walaalle intaas ceemiya maya waa sax haddaad iga maqasho ree hebel dila xoolahooda dhaca maalkooda dhaca bililiqaysta daalin baana waan soo dhaweynayaa midda kale waxaa weeyaan horta waxaan ka cabaadinaya dadka waa la awoodaa qofku haddii uu xishoonayo uu ixtiraami leeyahay wuu isqaban laakiin waxaa la yidhi roobku hadduu ku helo marka dambe axbaa dhihi waxaa weeyaan hadda wayna kartay caydii aflagaadadii anigu waxaan kuu ballanqaadayaa walaalle waxaan kuu ballanqaadayaa islaamnimo soomaalinimo tawxiid laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah dhiigga hawiye waa xaaraan ka daarood waa xaaraan ka isaaq waa xaaraan ka raxan weyn waa xaaraan dirya daaro jareer iyo jileec waa xaaraan dadka waxaa ku dhiirigelinaya dhallinyarada iyo soomaali ilaa ree hebelow kaca laaya dila anigu xaaraantii baan hor istaagay madaxweynaha soomaali dooratay qabiil gooniya ma dooran in la dhaho daarood waa in la dhaho rijiimkii waa in la dhaho afweynaha soo noqday in la dhaho hiraabow kaca habargidiray kaca hawiyow kaca gabayraa la dilay waxaas nacnac weeye may maqlaysaa aniguna waxaasaan haraati kala daala may maqlaysaa hawiyana waa dhiiggay waa dhacaankay maqlaysa xildhibaanno mooryaana hadlay afkaan ku dhuftay nin baa la toogtay oo maanta hadda la tooganaya ninkii dilay ahaa kii qaranka waxaa la yidhi argabayro sidii loo doogtay baa kana loo toogaaya war waxaa ninkan
ilaahay ka baqa baaris baa lagu sameynaya hadduu dambi galayna waa lagu qaadaya hadduusan galina waa ceeb ka saliin amnigii qaranka maxkamadihii ayaa sameeyay baaritaan waxaa caddaatay ninkii dilay maanta la tooganaya ma intaasaa laygu haystaa aniga iyo runta inaan sheegayo xaqana difaacayo laguma haysto waxaa weeyaan algaalka midda laguma haystaa waa inta qabiilka haddaan nimankan u leefan dhankooda nimankan waxaa weeyaan waqti waa la hadla anigu dafaan isku leeyahay markaad la hadasho hal nin oo su'aal saxa kaaga jawaabaya ma jiro nin walba wuxuu ku leeyahay waan soogaa inaan qaa'inahay waan soogaa inaan beenaalahay waan soogaa inaan wax wada dad maxaa adiga anigu nafsadayda saan doonaan ka yeeli karaa muhiimadda waxaa weeyaan labadii nin oo laba mitir isku soo xireen nin walba waa tuug uu dhawaanaya xitaa wallaahi awood in dukaanka wax kaga soo gadaan malaha nin walba in adeerkiisa u dhawaabaa raadsanaya haddii la qabto boys loo gudbiyada rag baa u dhaarsan inay xitaa ku galaan xarig maxaa keenay talwaana lagaga samray wax sheed baa lagaga samray qofka marka dambe waxa anuu sababtan hadda waxaa laga yaabaa dadku markaan ku yidhaahdo wiilashan in ay sheegaan wixii ka dambeeyey filimkan baskoolada waxaa laga yaabaa dadka shacabkeena daawanaya inay dhahaan waa nin dhallinyara muxuu ugu adkeynaya dhallinyarta war anigu waxaan dareemayaa maanta haddii tan tallaabo laga qaadi waayo berriyaa idinku dhici idinkana facebooka ku jira ee miidiyaha codka ay ka dhegaysanaya inay idinku dhicibaan aaminsanaya tan maanta haddaydaan meel saarin walaalkay telefoon badan maa soo ugu dambayntii maxaa ku gabagabaynaysaa waxaan ku gabagabeynayaa walaalahii qiimaha iyo qaayaha lahu walaalkeen coldoon khadkii kuma jiro iimana soo gelin insha allahu tacaala halow walaale wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu horta sheekh cabdiraxmaan oo aad iyo aadaan kuu salaamayaa saaxib waa kaa qaaday walaalle soo dhowow horta waa la fiican yahay xaalku waa iska boqol sheekadan meelo kale sii gaari rabtaa dhibaatadana way badbadanaysaa marka sheekhu waxaan kuu soo wacay inaan talo ku siiyo soo sheeg walaalle taladan ku siinayo waxay tahay horta markaa albaabka garaacid albaabka wax kastaa kaaga soo bixi karo mid jinniya mid mooryaana mid sheeka mid waalan mid biyo adiga soo dhowow walaalkay south africa koonfur africa walaalle kor u hadal wacalaykum salaam fiican walaalle fariintaan soo gudbo walaalle walaalle laguma maqlayo kor u hadal kor u hadal haa waa mahadsan tahay waa garta yaa walaalle walaalla gacal iyo mooryaan weeye mooryaantana in gacan bira lagu qabto waajib weeye islaamiya diiniya qofkiila dadka laaya islaaya isdila isdhaca isbooba isbililaqaysta soomaaliya ka cahuuhaa dad muslima walaalo ah 30 sano xabad iyo qax iyo weerar ku jiray laisku baabi'iyo xaaraam weeye ma garat xaaraam weeye kulligeen xaaraan bay naga tahay kulligeen xaaraan bay naga tahay muslim in laisku diro laisku baabi'iyo laisku huriyo laisku kiciyo walaalle kulligeen dhallinyarada soomaaliyeed gacmahaan isqabsanno aan walaalowno aan isjeclaanno xaaraan ku naaxa daalimka qabiil kasta uu yahay aan qabanno والله وايا خير بنقول الجنة والسلام عليكم ورحمة الله. والله يا قيمة يا لو دالنا هي هلو. السلام عليكم شيخ. عليه السلام هل دقيقة كوسو كوب؟ وحكاسو
jaamac la yiraahdaa in adeero mar walba ku soo wacaa sheekho khayr Allah ku siiyo hadal haddee waxaan kuu soo wacay arrintan oo maarkin oo nimankan xabadda madaxa kaaga qabteen arrintaasaan kuu soo wacay haye sheekhu horta waxaa laga hadlaa markaa meeshaan imaanaysid oo aan social media isticmaalaysid aragtid sida daahir cali suugi maxamacaad weligaa maaragtay daahir cali banaanku baxare oo magaalada wareegaay walaa laga caliya waa criminal dambiile oo dee magaalada ma wareegaan gurigooday ku jiraan haye adiga haddii aad rabtid inaad Facebook aad soo gashid oo qabaa'ilo wax ka sheegtid oo dad shakhsiyaad wax ka sheegtid aniga taladan ku siinayo gurigaaga ha soo dhaafin gurigaaga ku jir walaa laga caliya anuu qabiilna wax kama sheego ninna kama baqayo ninkii naftayda dili karow kii goyn karow waxbaha iskula harin may maqlaysaa sheekho fiiri horta fiiri adiga qabiil wax waa ka sheegtaa sheekho horta ilaahay baa laga baqaa xabak sheeg waxaan ka sheegay hadda hadal sheeg waxaan sheegay ku celi hadda celi sheeg war habar gidir daahir maaha sida daaro daahir usoo wahay mise habar gidir daahir ahayn mooryaan bay leedahay beera dhacday dad laysay wax dhacday bilaqaysatay mooryaan leh sida daarood u leeyahay mooryaan bay mooryaan u leedahay mooryaanka daarood aan qabanno mooryaanka habar gidir aan qabanno fiiraade war mooryaanta oo dhan ma qabanaa diyaar ma tahay horta aniga mooryaanta ma taageersanay inin xabad kugu qabto iyo in lagu dhibaateeyo ma jecli nin waxaa tahay soomaaliyeed oo walaalkiya in dib ku soo gaara ma jecli laakiin waxaan jeclaa inaan runta kuu sheego sababta runta kugu sheegay waxay tahay waxaa aadaysaa Minnesota waxaad tegaysaa Tennessee waxaad rabtaa Ohio inaad xawilto waxaad rabtaa magaalada inaad xawilto haddana waxaad doonaysaa inaad qabaa'ilo islaameed iyo shakhsiyaad soomaaliyeed oo kale inaad wax ka sheegtid dadkaas dadkooda waddanka kula joogo dadkaas dadku waxaa jiraan iskontarooli karin dadaan kafta ka qaadan karin dadaan sheekadaan jeclayn dadku waxaa jiraan qabiilka lafaa ugu jiro marka aniga lafahaaga ma rabo inay baxarkaan galaan aniga waxaan kuu soo wacay wax kuu sheegaya waxay tahay horta dhalinyarada ku imaatay dhalinyarada iska kaftamaysay ahayn adar gacaliye warkaaga waa cad yahay miinis waa lagu dilahayaa adar gacaliye ninkii dilahayo waxba iskula harin xaqa ka aamusi maayo nin adar gacaliye 1 milyan iyo barka imaqal hadii 1 milyan iyo barka qof Soomaaliyeed la dilay la gowracay la bilaqaysay la kufsaday labada 3 milyan oo qaxday kuwa la kufsaday kuwa la dhaawacay adar kama liito haddaan nintana de laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah iyo xaq baan ku dhimanaya ninkii aniga i gowracayo kii dilahayo waxaan joogaa adduunka meeshii ugu dambaysay isqarxi isdil kaalay isku kay qarxi maanta horta sheekadan waxaa laga soo dayay newska magaalada laga soo dayay haddeertaan booliiskana way dhaaftay FBI-da la wareegayso kayskaaga sababtoo adigan stateka laa ka imaaday statekiisa dhacdana dadka kuugu sameeya arrintan stateka maysan deganayn marka dhibaatadan FBI soo gelayso adiga naftirkaaga dan kuguma jirto FBI markay soo gasho adiga naftirkaaga dhibaata kaaga imaan karto adeer gacaliya anigu victim baan ahay dhibbanaan ahay maskiin allah lay dhahaa qof ma weerarin qof qori kuma qaban qof ma bilaqaysan qof ma kufsan qof ma xadin bayd ilaahay baan ku jiray haddaad leedahay waxbaad samaysay maxaa adiga bastoolad lagu qabtay oo dambi baad dambiile ku tahay saas haddii adiga cilmigaas naga yaqaan noo sheeg haddii ninkii dhibana waa blame the victim baa af ingiriiska imaqalde adar imaqalade af ingiriiska wuxuu dhahaa blame the victim waa cambaaree ninka dhiban marka ma anigii dhibanaha hadda cambaarayn yahuuhaa ila daba taagan tahay war waxaan ku leeyahay meeshaan waa dalal hormaray nabad baa ka jirta biis baa ka jirta dalka Maraykan ninkii raba inuu ku mooriyaaneeyo ama Belgium iyo Holland ku mooriyaaneeyo adar gacaliye maaha meeshii mooryaantu ay dadka ku doobin jirtay oo ku leyn jirtay oo ku bilaqaysan jirtay naftaada u nax lafaaga u nax carruurtaada u nax mustaqbalkaaga u nax haddaad diidin waxaad ka hesho adar nina waxa ka siinin ma garad adiga naftirkaaga haddii aad social media u isticmaashid inaad dad ku kicisid ama aad dad ku dhibaataysid waa ogtahay inay dambi tahay it is a crime saaxib inaad qabaa'ilo ka dhexaysid Facebook listen waa kuu sheegay war adiga ay maqal had waa kuu sheegay wax la caaya ma jiro civil war baa dhacay civil war rag criminalisa geystay oo daarooda oo isaaqa oo hawiya oo dirle oo racweyn oo jareecle dadkaas criminalska waa in la qabto waa in maxkamad la keeno waa in cadaaladda la marsiiyo
dadka masaakiinta waa in loo gurmado dhiigga daadanaya waa in la joojiyo masaakiinta la qarxinaya waa in la joojiyo afka la isu duubanaya waa in la joojiyo qabyaaladda cad iyo dulmiga iyo dilay iyo dhaca iyo booba iyo barakiciyay harka cad iyo habeenba idaacadaha iyo tviyada iyo facebookyada iyo youtube kala gelinaya waa in la qabto la joojiyo la xiro maxkamad la hor keeno adar gacal iyo diinta islaamka saana faraysa jannaana ku galaynaa ma garanta waan gartay sheekh dib xasan weliga ma maqashay carabiga ku naftay nabiga ka hormarta daaroodkii qabyaalada bilaabaan hadhow waxay ku leeyihiin qabiilka nagda iyo qurun adigu haddaad hawiyanimo iyo waxaas kugu jirto aniga hawiya waa walaalkay fiiri waryaa imaqal hadday hawiyanimo kugu jirto hawiya aniga waa walaalkay waa dhiigay waa dhacaankay waa muslim laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ile dhiiggiisu waa iga xaaraan maalkiisu waa iga xaaraan hantidiisu waa iga xaaraan sharaftiisu waa iga xaaraan sidoo kalena isaaq sidoo kalena raxaween dir daarood laakiin ninkiisa mujrimka criminaliska waa in la qabto ka daarood waa in la qabto ka isaaq waa in la qabto ciduu yahay waa in la qabto qabiil kasta uu yahay midab kasta iyo waa in la qabto adeerow gocaliya taasu hadday ku dhibayso dee aday kuu taallaa haddii aysan ku dhibayne haddii adigay ku anfacaysaa khayr baan kuu rajaynaya dadka kale aan siinaya wassalaamu calaykum hawiye ku leeyahay hawiye ku waash hawiye daarood miyaa kale walaalo weeye muslime subxaanaka yaa cadiim soomaaliya marka khayr baan walaalayaal idiin rajaynayaa marka insha allahu tacaala hadda saacaddaas aan idinla hadlahayo walaalahii qiimaha iyo qaayaalow walaalkii coldoon waa sugahayey halow walaalow adaan kuu gebagabaynaya waa daalay saan life ugu jiray waa daalay walaalkay عليه السلام والله وعليه السلام سو قدبي ولا لقى علي وحن جانس كأوصيه إن قرن كذا لدقيسته أو أن كقفنا وحى قرن كدان يرى كقفنا موريانتا وحى دان يرى كوكورتي إن أن كسبنا أدهنا ولا نهاي مسلم بان نهاي أهل بان نهاي سكيا نهاي ديجين وكلا حرام مالكين وكلا حرام يعني كل يوم كنا ربنا صومالية دان يروي أضيارو قناعسطي علومي ربي أنك يابنا ولا لون قعما يسقبصنا حاران كنا حقفنا كنا حي سلاد أنتو كان خمرية عبك ضل يديد يهو يمانتي يا بني آدم أكب حي أن ديننا وركيس إلهي أنك يابنا هراء ونصعون المدون مرحب مرحبا كايا لي ولا لي خير الله قصي ولا لقى علي إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله تعالى
خير الله كسيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ولا ليال خير بان دير الجنيا الصومالي الله مديو ولا لما الله نسيه السلام نما الله ندحديو قلوبتنا الله سكينه بوغينا برعا الله سمريو كويس عافيه الله نغا ديو كويلا لو الله نغا ديو كويما مدو الله نغا ديو كوا انس ظلمين الله نغا ديو كوا انس دلين الله نغا ديو كوا انس دوحان الله نغا ديو كوا انس بلقيسان الله نغا ديو انت لونسن الله سو هنوني انت توصن الله زياديو انت يعني خير بيلا الله سو هنوشو ساسان idin rajaynaya waana ka baxaya fadlan shargareeya xaqa faafi walaalow adaan kugu gabagabaynayaa soo koob walaalow hal daqiiqo ku soo koob soo koob walaal haye waa gart وايا ولا جبويها أرنتي سبناو كادين كرتا إن شاء الله ودي بناو دي كرتا. حاضر داير على سوها. ولا إن شاء الله ولا لهن قبوي الله يهلي الله قرقاره عدة ظلمنا يسأل الله هنونيو صومالي الله هديك يدا كلا قبته إلهي حق عنا تصو صومالي الله سكينه إلهي ضد كلا ظلمنا يهوه يهلي مقرت وايا ولا السلام عليكم ولا ليال فافية خير بني كتري إلهي درت الشرقرية وجزاكم الله خير السلام عليكم عرضون بهيدنا ورستو أن عرضون وأسرة تقلي ويدي وخدك الصوق له ده خير بني دير جينيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا موزمبيق ولا السلام كلها هاي أو كوكرات واقو سلام مركو هاي وحن كوشة يا خفوا باتاي ننوضي عطاي شيخ باتاي عروض عنصرة بطولة وقبضي حاطيها ما تدي سبريكا مالكم دينا يا ما فهمتي حداد هي حاطيها ما تدي سدود عفيسو بريكم عفينا ايان عيالك حقا ولا صادرايو أنا وحن كوشة يا عروض حنا ولا صادرايو أنا الحبس وكورجي ودولة طوبان دكتايا ولا طري لها سواء حتى فراك هذا بري هذا رب فراك ما قاضي يا كمان هاي بينا يان بري هذا كدران يان ديك هذا ما شيء قال يا واحدنا أنا إني ما كاتب الصورة تبغى قبضي أضاف فرحة جبنا يو أو شيء كينا يو صومالي نبغى وفرحنا يو نبغى كاتب الصورة تبغى قبضي بريكم عارفين يا واحد طلوا نبغى كاتب دولة طوبان دك حبسك عقورا حبسك كنت أقول شيء يا أنا وما صنت ولا شيء خير الله كسيو خير الله كسيو وما صنت ولا شيء قبيل وحبك يا مجل النفط هذا أخو قبيل النفط هذا يا نرش هذا وحكى عرفي عن مجران وحبكوا مشيغا يا قبيل قبيل أخو ديني فراعك قابل الدير رانا هذا بريحاكوا أخو شيغا الدير رانا هذا وحبك يا مجل لكن أنا أخو ديني أنا مكا حقك أخورا هديني نمكا ولا الله خير الله كسيو وما صنت خير الله كسيو عالي تبصالتك وقو أفتانا الله يسكا كنت تيلا عطي المرأة يقصع المرأة نمكا أصلين نبعيرات هديني باقو إلانيك فلايسكا كارسو أما وحول باقو سوقري هدين باقو إلي هديني وما صنت ولا شيء خير فربنا الله كسيو خير الله كسيو ولا شيء خير فربنا الله كسيو هديني باقو إلي ناشا صوماليا مع أمريكا أمريكا أبا انت أصلا دقيقة لا شيكيناي وتانس هذا كله مليي وفرحت قليناي عطيكو حشمين وايين حتى أديقنا حشمين لماك بطولة المدعة كاسارايو وابو منترين وابو على الشبابي ولا شيء خير فربنا الله كسيو وما صنتي أي خير فربنا السلام عليكم وقبر الصومالية وكسوها اللي سيدال كاسي موزمبيق ولا لا يو قبرنا الصومالية أيكم قبر قبيلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته